madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanye iyo wafdigii ballaarnay uu hogaaminayay ee safarka shaqo ugu kicitimay dalka isu tagga Imaaraadka Carabta ayaa qadar saacada ku sii nastay garoonka diyaaradaha ee Bola International ee magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya waxaana halkaasi madaxweynaha iyo wafdigiisa lagaga qaaday diyaarad khaas ah oo uu soo diray boqorka Imaaraadka Carabta wafdiga madaxweynaha Soomaaliland oo martiqaad rasmi ah ka helay Imaaraadka Carabta ayaa markay halkaasi gaadheen wafdiga madaxweynuhu waxa si diiran ugu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan dawladda iyagoo heegan ay ugu sii hayeen halkaas madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdigiisa ayaa qadar nasasho ah ku qaatay garoonkaasi diyaaradaha intaasi kadib waxaa loo galbiyay halkii loogu talagalay in la dejiyo waxaana lagu galbiyay baabuurta khaaska ee madaxweynayaasha iyadoo dhammaan wadooyinku ay ahaayeen kuwa ammaankooda la sugayay isla markaana madaxweynaha Soomaaliland ay ammaankiisa ilaalinayeen ciidamada sida gaarka loo carbiyay ee loogu talagalay inay sugaan amnigooda kaasoo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ay ciidamadaasi ay hareeraysoodeen intii uu marayay wadooyinka waxaana la filayaa in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Silaanye iyo wafdiga kooban ee uu hogaaminaya ay saacadaha soo socda la kulmi doonaan boqorka Imaaraadka Carabta oo martiqaad u fidiyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo ay ka wada hadli doonaan arrimaha labada dal ka dhaxeeya iyo arrimo dhowr ah oo kor loogu qaadi doono xiriirka labada wadan iyo sidii loo dardargelin lahaa mashaariicaha kala duwan ee kaabayaasha dhaqaalaha kor loogu qaadayo Soomaaliland ee dalka Imaaraadka Carabta uu ka taageeray Soomaaliland